بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم daawadayaal caawa waxaynu ka waramaynaa liibaanta waxa la yiraahdo maxay tahay liibaantu waa su'aal aad u da'weyn oo aan la isku raacin jawaabteeda af carabiga liibaanta waxaa lagu yiraahdaa as-sacaada af ingiriiskana waxaa lagu yiraahdaa happiness waxaanse inagu ka soo qaadanaynaa siyaalaha wax looga sheego ama lagu tacriifiyo liibaanta inay tahay dareemid raalli ahaansho iyo faraxsanaan qof kasta waxa uu jecel yahay hadduu helo wuxuu dareemayaa liibaan mathalan tusaale ahaan qofka jiran haddii caafimaad uu helo wuxuu dareemayaa liibaan qofka la xiray oo xabis ku jira haddii la sii daayo wuxuu dareemayaa liibaan qofka aan shaqo haysan hadduu shaqo helo wuxuu dareemayaa liibaan qofka qof uu jecel yahay ama wuxuu jecel yahay helay wuxuu dareemayaa liibaan marka qofka fakriga ah mathalan oo ay wax la-aani ah hayso hadduu helo maal hadduu helo wuxuu dareemayaa liibaan culimada arrimahan falanqaysaa waxay yiraahdaan liibaantu waa go-aan qofku u gaaro ee ma aha wax banaanka uga yimaada goormaad goosanaysaa inaad liibaantid waktiga hadda la joogo dib ha u dhigin inagu maadaama in muslim nahay waxaynu aaminsan nahay liibaantu inay laba u kala baxdo liibaanta adduunyada iyo liibaanta aakhiro labadana wixii lagu gaari lahaa ilaahay waa noo sheegay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wassalaam oo waxay ku taallaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam haddaynu u soo noqonno marka midda adduunyada liibaanta macnaheedu ma aha inaadan mashaakil qabin ama dhibaato kugu dhicin ama aadan wax la-ayn ma aha qof waliba adduunyada intuu joogo waxyaalahaas wuu la kulmayaa waxaad arkaysaa walaalayaal inay arrintu saas ay tahay dad malaayiin haysta doolar ama riyaal ama shilin oo haddana dareemaya inayan liibaan ayan haysan oo habeenkii aan seexan oo ku nool welwel cunada ka cuna wax aada u yar intaa daawo ku socda 100 cudur qaba dadkaasu marka xaggee liibaantii ka aaday maal waaba haystaane waxaad dhanka kale arkaysaa qof faqiira oo dhar jeexjeexan qaba oo caruurtiisu gaajaysan tahay oo haddana iska faraxsan oo qoslaya oo welwel uusan hayn oo mustaqbalka ka baqayn oo cabsi ayan hayn taas marka waxay ku cadaynaysaa inay liibaantu tahay nafta ayan ahayn waxa aad haysatid nafsadaada bay ku xiran tahay waxaa la yidhaahdaa caalamka aanu joogno waxa ugu nolol wanaagsan wadamada la yiraahdo scandinavianka wadamadaas oo ay ka mid tahay denmark norway iyo sweden saa oo ay tahay dadka isdilah caalamka oo nafta iska gooya waxa u badan caalamka iyaga aawi marka maalkii iyo nicmadii iyo barwaaqadii ay haysteen si daawade aad u noqotid mid liibaan dareemaya waa inaad arrimaha soo socda aada samaysaa kow xakamay caradaada xakamay faraxaaga xakamay welwelkaaga baqdintaada aan cid aan ilaahay ahayn aadan ka baqin intaasoo dhan waxay kuu saacidaysaa ama kugu kaalmaynaysaa inaad noqotid qof liibaan gaaray tan labaad ku raalli noqo waxaa ilaahay ku siiyey iskuna day inaad dadaashid oo haddii dhibaato ku haysato saa dhibka uga bixi lahayd aad dariiqeeda qaadid matalan tan saddexaad haddii lagaa dhinto qof kaa dhinto ama aad khasaartid baac mushtari intaad gashay maalkaagii ama dhib kaleba kugu dhaco meesha ha dul fadhinin oo welwel iyo mugdi iyo cabsi iyo xusni iyo magaranaysa qalbi xumaan iyagan ku geline ka gudub maraykanku waxay yidhaahdaan life goes on noloshu horay u socotaa hadalkaa waxay yidhahdeen mar
gariir uu ka dhacay San Francisco oo ay dad aad u fara badan ku dhinteen. usbuuc ka bacdina waxaa la cayaaraya cayaal baseball la yihahdo ay jecel yihiin, iyagoo ka shaqaynaya oo dhulkii burburay hagaajinaya ayay haddana cayaartii ay fiirsadeen. hadalka ay lahaayaanna wuxuu ahaa life goes on. tan afraad, ha u hanqal taagin dadka kale waxa ilaahay uu siiyey oo ha xasdin. maxaa yeelay haddaad qof xasadid oo aad qalbiga gashatid waxaasuu u helay iyo maxaa ilaahay u siiyey, adiga unbaa qalbigaa gubanaya, laakiin isaga waxaad yeelaysid ma ay jirto. tan shanaad oo waxyaalaha ku saacidaya inaad liibaan dareemtid. eeg dadka adduunye ahaan kaa hooseeya, laakiin diin ahaan iyo cilmi ahaan iyo kaa sareeya. taasi waxay keenaysaa nicmadii inaadan yaraysanin oo nicmada ilaahay ku siiyey ay kula yaraato. matalan haddaad eegteed ninka adduunka ugu dhaqaalo badan oo aad tiraahdo isagoo kale maa noqdo, waxaa dhacaysa inaad welwel iyo habeenka aad seexan weydo. sidoo kale waxaa kuu saacidaya in aad noqotid qof liibaanay nafs ahaan, inaad qof rajo ilaahay ka qabo aad noqotid, oo ilaahay waktiga soo socda inuu wax wanaagsan ku siin doono, xaaladaada uu bedeli doono, qof dareensan inaad noqotid. tan toddobaad, dadka waxba qalbiga ha ugu qaban ee iska cafi. raaxo waxaad dareemaysaa nafsadaada ah oo had iyo jeer aad jeclaanaysid inaad dadka la kulantid. tan sideedaad oo kugu saacidaysa oo kugu kaalmaynaysa inaad ku noolaatid liibaan waxa weeye, isku day waxyaalaha ama dadka wanaagsan oo waxa aad ku farxaysid kuu sheegaya, ee niyadda aan kaa jabinayn, ee aan ku dullaysanayn, ee aan ku ceebeynayn, kuwaas la joog. maxaa yeelay kuwaas farxad bay kuu siyaadinayaan. matalan qof had iyo jeer markaa wada kulantaan kugu kaftamayo, ku caynayo, ku liidaya, hadda inaadan liibaan ka siyaadsanayn adigu waad garanaysaa. tan sagaalaad, sacaadada waxyaalaha lagu gaaro waxaa ka mid ah ina ilaahay barisid subxaanahu watacaala ku abuuray suu kuu taageero oo kuu liibaano. intaas ayaan kusoo koobaynaa caawo liibaanta iyo mawduuceeda. waana mawduuc muhim ah. marka walaal ha ku noolaanin cabsi, ha ku noolaanin welwel, ha ku noolaanin noloshu waa yar tahay, in yar baad adduunkan joogaysaa. intaas ha ku baabi'inin welwel, cabsi, muxuuha baqdin, wax saas oo kale ah. si nafsadaada rajo iyo ilaahay subxaanaه watacaala inaad wanaag ka filo, markaasaa ilaahay subxaanaه watacaala khayr ku siinaya. intaas ayaan kusoo koobaynaa mawduuceena caawa. wallahu subxaanaه watacaala aclam.